magaalada Qarro ku taala goob istiraatiiji ah wadada saaran ee isku xirto magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ilaa gobolada koonfurta ayaa sanado badan la daalaa-dhacaysay daadad biyo wata xilli roobaadka taasoo ay ka dhalatay dhimasho iyo burbur hantiyadeed. waxaa dadka deegaanka ay walwal iyo cabsi badan ka qabeen ay keentay in maalgashiga magaalada uu yaraado maadaama xitaa suuqa guud ee magaalada biyo oo saameyn weyn u geysan jireen. aynu dib u milicsano sanadkii 2020 sanad ay dadka reer Qarrood xasuustooda ka baxayn kadib bishii Abriil xilli Ramadaan ah oo biyo xadigooda aad u sareeyo oo magaalada saameyn dhimasho tiro 10 ku dhow ilaa ganacsiga oo gabi ahaantiis qasaare weyn soo gaaray. indhaha adduunka ayaa magaalada qabtay gurmad ayaa magaalooyinka Soomaaliya ka bilowday ilaa dadka qurbaha jooga ay kacaan si dadka cayroobay noloshooda dib ugu soo noqoto. wixii intaas ka dambeeyay waxaa xoogsatay in la maareeyo biyaha magaalada ku soo fatama taasoo caqabada ugu weyn ahayd goobaha biyaha oo la deegaamaystay juhdi iyo dadaal aan kala har lahayn oo maamulka magaalada uu garwadeen ka yahay isagoo guddiga maareynta daadadka Qardho iyo dadka deegaanka madalo badan ay yeesheen. kadib waxaa isku aragti laga noqday in wadooyinka biyaha loo furo 25 Maaj 2024 si rasmi ah oo loo bilaabay burburinta goobaha biyaha. guriyo 20 kor u dhaafaya ayaa dumintoodu socotaa iyadoo shaqadii ugu bandhig la qabtay wali si gacanta ayaa lagu hayaa. waxaan joognaa togi Qardhood oo lagu soo celiyay togiisii yani meeshan waxa ciid fuushay iyo siday u aasantay iyo tacadiga ku dhacay. alxamdulillaah rabbil caalamiin shaqo fiican baa la qabtay shaqaduna waa soconaysaa haddii ilaahay ka raali noqdo. cinwaankeyga waxa weeye howlkamadaalow weli waa hogadii shaqadaas socota waxaan rabnaa insha Allah in loo soo jeesto meesha ku gooda hadda waxa way barbarkay ka baxda waa bakayla mareyn. goobaha la burburiyo waxaa ka mid ah suuqa weyn ee magaalada iyadoo loo sahmiyay goob safe ah oo looga dhisay suuq cusub. ganacsatada ayaa mahdiyay iyagoo uga nastay habaaskii iyo biyihii walwalka ku hayay. wanaagsan oo aanu ku dhannahay oo hilibkii leh oo caanihii leh oo yaanyadii leh oo wax walba leh oo har leh oo maasha Allah ay nala sameeyay maasha Allah bagaashkii oo kabino kulli Qardho wixii ganacsi ah waa suuqa dukaan maahan meeshii hore kan qorrax bay ahayd boor bay ahayd ciid bay ahayd anduuf bay ahayd qashin bay ahayd maasha Allah dawladda kor Allah ka dhig hilibka saaka waa noo dhamaaday suuq wanaagsan baa nala keenay. shaqada socota ma tahay xalkii Qardho uga bixi lahayd biyaha soo fatama halkii ayay maraysaa shaqada socota. waxaa su'aalaha ka jawaabay Sheekh Maxamuud Xaaji oo guddiga shaqada gudoomiye u ah. runtii meeshan markaan imaanaynay sida u akayd waad garanaysaa maanta waxaan dib u soo celinay ama maalmahan togi magaalada Qardhood waxaan intii ugu badnayd qaadnay guryihii ku go'naa biyaha kulli waa ku guulaysanay laga soo bilaabo halkaas hadda aan u jeedo ilaa gadaashayda ilaa iyo kuleejo ayaanu guryihii ku go'naa biyaha aan banaynay. hadda shaqada aan wadnana waxa weeye ilaa markaas daawadnay inaan togi qodno oo aan banayno waa adiga arka waxa tuurar ciid ah laga qaadayo halkana darkayso laami shuba ayaa ku jiray oo sidii biyo xireen oo kala ah isagina waa jabinay si aanu hadhowto uga dhigno meel biyaha ay mari karaan. marka shaqadaas runtii aad iyo aad ayay u socotaa insha Allah ilaahayna nuguma dhibin ولينا وودنا بسم الله الرحمن الرحيم وصح انغو لعق ان واغي هore lacagtii aan ururinay oo intii aan magaalada waagi dadka dhibaatada gaartay aan ku celinay inta kale aan ilaa xilliga haynay ayaanu hadda shaqada ku wadnaa. guri walba oo hadda aan duminayna waxaan siinay lacag ciwad ah ama bedel ah si uu guri kaleeto u samaysto qofka isagoo qanacsan ayaan dirnay. guryaha wali meelaha biyuhu maraan yaala annaga qorshahan ku soconay wuxuu ahaa inaan toga iyo inta ku beegan aan furno hadeertan injineeradu naqshada ay sameeyeen aan ku socono naqshadii injineeradana 100% ayaan fulinay hadeertan wixii dambe waqtigeeda imaan doonaan insha Allah. qaar ka mid ah bulshada ayaa iyaguna ka jawaabay maareynta socotay iyo sida ay u arkaan. Cabdullaahi warbaahinta SBC magaalada Qardho. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u arkaa inay tahay mashruuc u baahnaa in hore loo qabto laakiin ma sha Allah mar hadii maxaan ku iraaday wax kasta qadarta ku xiran yihiin aad iyo aad baa waxaan arkaa inay tahay mashruuc ummadda reer Qardhood aad u farxad geliyay. ana aragtaday wallahi waa ku faraxsanahay 3 jeer meeshan daad igu galay meesha waxa hadda korba loo dhisay alxamdulillah laakiin sanadkan
daad waa noo dhammaaday isleenahay waxaa weeye daad kale ma jiro waddanka oo biyo mareen ah oo loo sameeyay alxamdulilah maya anigu fakarkayga waxaan aaminsanahay biyihii waddadii ku xirad waa laga furay biyihiina waa la furay biyahaasna waxa weye waddadoodii hadday helaan in meeshay mari jireen bay marayaan waxa weye waxaan ka codsanaa madaxweynaha inuu buundo caalami ah saaro oo biyaha waxa weye buundooyin helaanin waa kan derbigan laamigan la jarayo siduu u shuban yahay waad u jeedaan wakaa togii gufro ka imaanayay wakaa eskaafeetarkii oo raraysa haddeer laamigii shalay la jabiyo waa kaa maanta waxaan ku dadaalaynaa inaan intaa faruurno si haddii biyo soo dhacaan ay biyuhu u gudbi karaan insha allahu tacaala insha allah waxaan rajaynaynaa taariikhdaa sheegi doonta in shaqadan lagu guulaysto waxaan leeyahay bal taariikhdu waxay suubisiyo saa dambaan dhowro cabdiweli axmed cabdulaahi warbaahinta s b c magaalada qardho adeegga sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka adigoo kala socon kara lambarkaaga goliska haddaba macmiil maantaba iska diiwaangeli adeegga sahan garaac xidig 183 gees kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeegga hambalyo macmiil waad ku guulaysatay furashada adeegga sahan